xoogagga ka soo horjeeda kooxda Taliban ee waqooyiga Afghanistan ayaa sheegay inay la wareegeen 3 degmo oo u dhow dooxada Panjshir halkaasoo ay ku soo aruureen haraadiga ciidamada dawladda iyo kooxaha kale ee maleeshiyaadka ah. wasiirka difaaca dawladdii burburtay ee Afghanistan General Bismillah Mohammadi oo wacad ku maray inuu Taliban iska caabin doono ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in gacanta lagu dhigay degmooyinka Deh Saleh, Banu iyo Bulheesar ee gobolka Baghlan waqooyiga Panjshir ee dalka Afghanistan. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay inaan si degdeg ah loo cadayn waxa ay ciidamadu ku lug lahaayeen, balse dhacdadan ayaa sii kordhinaysa tilmaamaha kala firxadka mucaaradka Taliban kuwaas oo toddobaad gudihiis kula wareegay dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Afghanistan. The Taliban will be accountable for its actions and will investigate reports of reprisals and atrocities carried out by members. Television maxalli ah oo lagu magacaabo Tolo News ayaa soo xigtay taliyaha booliska deegaanka oo sheegay in degmada Banu ee Baghlan ay gacanta ku hayaan ciidamada maleeshiyaadka deegaanka, isagoona sheegay inuu jiro khasaare xooggan. Taliban ayaa ka hadlin dhacdadan iyadoo hogaamiyaal sare ay ku shirayaan Kaabul si ay u bilaabaan samaynta dawlad loo dhan yahay.